maanta waxaan joognaa Kenya joognaa wili kama bixin laakiin waxaan joognaa the south side of Kenya joognaa coastal city small city Malindi la dhaho waxaan joognaa meel la dhaho Malindi. What is it called meshan? Hotelka? Okay, waxaan joognaa meel yariisa joognaa inta island kan oo aad u jasiirad ma ahan laakiin coastal waay xeeb marto marka waxaan soo aadnay inaan vlogs iyo ku sameeyno xogoon u soo hawlgalisano maadooyinkan uga hadalno. Hello, assalamu alaykum. Dirito waa podcast oo host garanay Doni B walaalkiin. Haddii aad channelka ku cusub tahay subscribe noo saar share like da asxaabtaada la qaybso. Maanta waxaan ka hadlaynaa waxay tahay monetary system wax la dhaho Soomaalida ku cusub aan rabnaa inaan ka hadalno oo ah paper money lacagta inay dhacayso lacagta xanshida mar dhow inay dhamaanayso marka lacagta xanshida markay dhamaato waxa ku xigta marka dollarka ugu weyn when dollar falls waxa ku xiga all other money pound euro shillings bir whatever Djibouti lacagteeda waxa dhan way dhacayaan sababtoo waxay raacayaan dollarka raacayaan marka waxaan rabay inaan Soomaalida maadaama dadka aan ka dhashay yihiin especially dadka yar maanta sameynaya hanti inaan ku gobaabiyo inaysan lacagtooda bank dhigan. Maanta topicadeen waxa waaye moneyga saa u save gareyn lahayd ama wealth-kaaga lacagtaada saa u preserve gareyn lahayd in a good way. This adiga ani ahaanteeda diiniyan markii la dhaho spiritual ahaan three ways that jirta u preserve gareyn karta lacagtaada. One is gold in gadatid, and second is land in gadatid, and third is livestock in xoolo yeelatid ama dhul xoolo ama dahab in gadatid. Sababtoo dahab mar walba qiimihiisa ma dhacayo sababtoo dahab waa dahab and everyone knows. Marka waxaan kala hadlaa waxay tahay dollarka Mareykanka inuu dhacayo waxa dhici karta inaad isweydiinaysid maadada noocan oo kale intee ka keentay ama intee ku soo maqashay inuu dhacayo sidee ku ogaatay sababtoo every person oo Mareykan joogo oo maanta officialka the officials ka waaweynka Mareykanka ilaahay waaweyn iyo all Israeli lobbies way ogyihiin Mareykan meesha ku socdo Israel waxay socotaa inay Mareykan ka boos qaadato ee adduunka u taliso uma socoto inay caadi ahaato waa the third ruling state in the world and the last ruling state marka waa qasab marka Mareykan booska laga bixiyo sababtoo ah Mareykan oo soo taagan Israel adduunka ma maamuli karto Mareykan waa inuu dagaal galaa dagaalkaasna waxa ku baabaya marka Mareykan reputationkiisa sharaftiisa awoodiisa uu ku lahaa iyo saameynta adduunka ku lahaa baabaayo waxaana ku xogsanaa marka dhaqaalihiisa inuu la baabao taasna marka waxay keenaysaa marka hoos u dhac badan nolosha Mareykanka badanaan aniga ahaanteeda some research marka sameeyay waxa ogaanay mostly dadka weyn doona hantidooda white American yihiin dadka cadcad lacagahooda inay weyn doonaan Mareykanna qof kasto lacag bangi ugu jirta intaas oo milyan oo dollar hadduu hal maalin la there's no money zero waa dareemi kartaa Mareykan qof joogo wuxuu sameynaa qori ah kula soo baxaya rifle automatic weapon oo la soo baxaya dariskiisa maaragtay oo galay adiga dariskiisa daatayna ku dhamaatay marka mani cabsi gelinaya laakiin xaqiiqo waa adduunka maanta meesha uu saaray waxa waaye brink of waxaan taaganahay war dagaal in la galo dagaalkan waxa waaye dominance iyo in lagu adduunka sida loo control lahaa sababtoo waxaan taaganahay one state giving another state a position uu ku maamulo adduunka waxaan maraynaa maanta 1945 dagaalka labaad adduunka markii Britain ay u dhiibaysay Mareykan oo kale tamarina Mareykan will give the power to Israel si uu maamusho adduunka and Israel will rule the world marka adduunka ay maamulayso sidii hadda uu maamusho Mareykan laakiin hadda waxa waa behind the curtains daha gadaashiisa ka maamusha laakiin waxa mar dhow soo dhow in si cad ay u maamusho and then United Nations kana la soo raro UN ta laga soo raro New York laga soo raro Jerusalem la keeno
waxaan jeclaan lahaa culimadeena maadadaas inay ka hadlaan iyo aqoonyahankeena laakiin maadaama aniga weli student ahay oo wax aan baranayo waxaa ognahay waxyaalo badan in laga qariyo in aan ka raadino mooye aan marka dollarka Mareykanka dhacayna waa wax mar hore la plan gareeyay almost adiga 1991 wax la plan gareeyay waa okay neocons dad la dhaha jiro and their first agent kooda ugu horeeyay oo u shaqeynaya wuxuu ahaa nin la dhaho Bill Clinton madaxweynaha soo ah marka planka wuxuu ahaa Mareykan inuu dagaalo badan qaado destabilize inuu ka dhigo wadamada Carabta iyo Islaamka oo ka soo horjeesan kara Israel si ay u maamusho adduunka aan haddana maantana taas lama baqaan waa aragteen hal sano ka hor 2024 waxay sameysay Israel marka taasna waxa garab ku sii waa Mareykan inuu waxa sameeyana waxa garab ku sii asagana waxa waa Israel marka labadooda garab way siiyaan inay garab siiyaan quraanka ku jirta we need to learn quraanka ilaahay wuxuu leeyahay بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فهمتي يا أيها الذين آمنوا لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولوا منكم فإنه منهم كو إلهي رميو أنا ونقول إلهي إسلامك حلالنا قوننا يهود النصارى صاحبة وقد حي allies themselves each other haddii aad ku biirta that kind of alliance na marka waxa ka mid tahay ayaga like Turkey oo kaleeto ama Turkiye ma dhaha Soomaalida waxaan ogahay Turkey aad u aaminsan tahay laakiin ma ogo the real face of Turkey laakiin mar dhaw ogaan doonaan Turkey is a member of NATO agendahiisana waxa waa agendaha Israel same agenda qabaan inkastoo dadka Turkiga ay u dhashteen dad muslimiin qaar yihiin qaarna Kristaan yihiin laakiin agendahiis is NATO member waa North Atlantic Treaty Agency waa Judeo-Christian Alliance waa Ilaahay Quraanka nooga digay inaan ku biirno laakiin Turkey NATO inuu ahaado ku qanacsan yahay saasay tahay in Ruushkana saaxiib u leeyahay and obviously waxa dhacaysa NATO iyo Ruushka inay isku dhacaan wargan uma dhacay because of Ukraine wargu uma dhacay because of Syria wargu wuxuu dhacay something called wax la yiraahdo BRICS oo dhowr wadan isku yimaado Brazil Russia India South Africa China oo sameysanayo lacag u gaara lacagtaas oo new balance keenayso eastern side ka inay sameystaan lacag and then the western bloc waxay sameysteen dollarka sameysteen marka inay adduunka balance ka jiro sababtoo Mareykanka sidoo sameeyay wax khaldan waaye adduunka dhan waxa u moodaa inuu cunaha qabtay sababtoo wadankii ka soo horjeesto ama uu afgambiya ama wuxuu saaraa sanction cuna qabateen iyo inuu wax walba ka jirto haddana waa aragteen American aid isku dhamaaday dad badan waxa arkaysaa xanuunadii qabay cudurka AIDS-ka oo daawooyinkii la siin jiray laga istaajiyay sababta AIDS-ka loo istaajiyay waxay tahay waa American is falling hoos u socda is declining dagaaladiisana way bateen haddii aan weydiiyo dadka Mareykanka ku nool Soomaaliya when was the last time Mareykan dagaal uu galay uu raaya maqasheen since Vietnam xitaa mareen dagaal uu ku raaya Mareykan uu ku guuleystay malaha marka Mareykan waxa waay qorax sii dhacayso waxa fiican marka qof kasto Soomaaliya North America iyo Western world jooga ama Europe inuu dareemo inuu iska fadhiyo waxa ka fiican inuu fahmo adduunka historygiisa meesha uu socdo adduunka is going to war dagaal uu socda aan dagaalkana ma dagaal xabad la ridayo waxa waay nuclear war mana cabsi gelinayo ma fahantii is straight wax dhab ah soo baari kartaa meel walba ka fiirin kartaan nuclear war wuxuu dhacay waxay tahay inay Israel adduunka maamusho darteed dollarka Mareykanka uu dhaco Mareykanka reputation-kiisa uu hoos aado and then Israel adduunka maamusho the small part ka soo haro
qaybii adduunka soo haro wixii kale nuclear baabiinayo wixii soo haro si ay u maamusho marka waxaan aad ugu faraxsanahay marka inaan maanta nala qaybsado aan maadooyinka NATO monetary systemka waa soo badinayna waxaan isku dayaynaa inaan research badan soo sameeyaan nala soo socodsiiyo sababtoo ah dolarka Mareykanka wax baak gareeyo ma laha waa xansho caadi la daawacayo gold ma baak gareeyo anaka hadda aan fiirino Africa waxa leenahay gold iyo waxa leenahay diamonds leenahay imagine Africa as a continent oo lacag leh oo lacagteedana baak gareynayso diamonds wadanka adduunka ugu taajirsan ahaan lahayd marka lama ogola taas waxay ka soo horjeedaa marka qaabkii planka loo degay plankan ma ahan plan hadda la degay waa plan aad u dheer waqti dheer ahaa dad badan ka soo shaqeeyeen the same families ki ka soo shaqeeyana still they are at work wili shaqay ku jiraan waxayna ku jiraan wixii ka soo horjeestay inay baabiyaan madaxweynihii ka soo horjeestay in xilka laga tuuro kii laaluush la siin karo la siiyo wadankii awood loo is adkeeyana in cunaqabateen la saaro sanction la saaro marka Mareykanka wuxuu noqday bully adduunka bulligiisa asaga waaye markaan yareynaan banooniga dheeli jirnay wax xasuustaan ama kubadda qofba soo u yaqaano waxaa jiri jirtay qofka banooniga isku dhajiyo cag wareejiyo oo banooniga maanta dhicish cishto laacib iska dhigo shaafta la kici jiray faanti Mareykan is doing the same thing banooniga isku dhajiyay wuxuu rabaa inuu Ukraine ka dagaaltamo wuxuu rabaa inuu ka dagaaltamo China geeskaas Taiwan inuu ka dagaaltamo China Sea inuu ka dagaaltamo rabaa Africa inuu ka dagaaltamo rabaa marka taasaa keenaysa inuu Mareykan jabo meel walbeed all fronts inuu waayo marka taasaa noo cadeynaysa marka inuu hoos u socdo Mareykan qofkii aan ogeyna then he's living in dreamland wuu iska nool yahay meel riyo ku nool yahay iska joogo meeshiisa qofkii kaleeto waxaan sheegayo ama wax la mid ah aan arkayna oo dareemi karaa kaleeto marka waxa ugu digaynaa Soomaalida inay hantidooda preserve gareeyaan gold u badashtaan in aan garano waxa noo roon as Soomaali maadaama aan nahay dad wadankoodana aan stable lahayn in aan garano at least caruurteena the kind of world adduunka soo socda buuqa badan sida u badbaadin lahayn qof kasta inuu isku dayaa fiican oo ka soo taga magaalada okay inuu u wareegaa fiican the countryside dhulkiisa uu sameesto xoolihiisa sameesto livestockgiisa sameesto xogo yaro dahabna meel dhigto okay nin aho ama naag aho ama dumar aho waxa rabto aho inta lacag meel dhigan lahayd waxa ku fiican dahab yar inaan meel dhigatay sababtoo lacag maalin waxa jiri doonto lagu dhigi doono subax inta soo kacdid lacag ma shaqeyso wax la dhaho oo dollar wata no ma shaqeyso marka ana anti waxaan leeyahay laha is never too late hadda isdaba qabta ha ku tashanina lacagta la dhahayo dollar ama pound ama euro ya lagu tashan sababtoo anytime waxay ugu talagaleen inuu burburo uu dhulka yimaado lacagaha adduunka kala dhanna monetary-ga dhan adduunka all the currency ay raacaan Kenya shilling everything in dhulka yimaadaan marka waxaan rajeynayaa inaan wisely aan hantideena meel u dhigano ilmaheennana mustaqbalkooda aan ka fikirno iyo Soomaali ahaan as a community ugu dambeyntiina waxaan igu dhaafayaa thank you so much for listening to the podcast haddii aad nagu cusub tahayna subscribe noo saar haddii aad hore noola socoteen oo ku mahadsantahay share and like dheh fikirkaagana waxaa noogu dhaaftaa commentiga waa mahadsantihiin ciao assalamu alaikum